warniyow arinka Soomaaliya hadda ka socdo waa loo yaaban yahay waa arin loo yaaban yahay sheekada saan u maleynahayna horta ma noqonahays Kenya wala socotaa soo ma ahan maxaan ula soconin waa kala taala xaqiiq haddana Soomaaliya sidii ka bilaawatay labadii aan ka socotay ayaa iyadana ka socotay labadii aan isdheeyna dadku waa iskaaga dhawyeen ya hadda halkaas kala waa la kala geey horta farmaajo waa ka warhaynay waa tiyaan wacnay nacam xaaladaha qaar waa noo sheegay bishaan soo dhaafnay bisha hadda socdo mishaarkeedina waa tii dadka shacabka ugu deeqay ninka ra'iisul wasaaraha la dhahay Roble Xuseen Maxamed Roble war kama hayn haye waa inaan xaaladda ka wareysan oon dhahna sidee dhacday qolkii yaraayo loo ijaari ninka waxa waaye ord yaa saaka waa la dulgay ciidan koofi gaduud ugu tagay ciidan koofi la'aan ugu imaaday saaka war waan moogahay aniga warlaan baa ku hayse ninkii leen tusbaxay qamiiska iyo go'a aad saaray la cabsiya u xirtay waa u shaqeyn waayeen qamiiskii waa u shaqeyn waay tusbaxay waa shaqeyn waay saaka amar alla wala soo weeraray xarada lagu soo weeraray xaradii lagu soo weeraray hadda marka ninka waa inaan wacnaa xaaladda aan ka wareysan walaalo see lagu qabsaday see wax ku gaara xaaladana aan noo soo sheegay farmaajo Xasan Cali Khayre aad ugu keensiyo anigoo og inaad shacabka saan yahay anigoo og inay geedaha angegeen anigoo og inaad ergafo bahalka ku dhacay anigoo og inay dadka qaar waasheen aad ugu keenay hadda Rooblaad qamiis u xiray marka hore nin mursal ah yuu ka dansaday korontada gibigeedaba korontada dhinaca xafiis ku shaqeynaysa ka dansaday haddana saaka wuxuu rabay ninkii inuu yirceer intuu maqaynas korontada damiye laakiin ra'iisul wasaaraha waa ka soo gaaray farmaajo ka saarmaysa waa wacina bas waa wacina war ugu dhuf bal ninkii meeshaan ahaa Roble ahay Xuseen Maxamed Roble ra'iisul wasaaraha xaaladiisa ay kacsan tahay oo caawa meel lagu weeraray caawa inuu gurigiisa xana in kale aan aqoonin ninkii aan wacayna bal waa ugu dhuf waa xaalad wareysanayna war ugu dhufaniyo midka hoose weeyaan waa lambarka waa numberka Xuseen Maxamed Roble waa dhaxay Hello Excellency Xuseen Maxamed Roble Hello walaal oo kuma ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan kala soo hadlaynaa xaafadda township Madeira dalka Kenya reer Madeira soo dhawaada Kenya aad baan walaalo u nahay dadka MNFD waa idin salaamaya ما شاء الله وكاقادني عقدنا هنو أركن وحواي جذوات بشان وحان وعني مدحوينها أمد الصوماليات محمد عبد الله فرماجة هران وعني كل كلوات أديكان كسو وعينا سببتان كسو وعين وحواي حالة دادا يعني كديرني أرت هذا الكينا صح وحاط هذا المدحويني هراء الصومالية محمد فرماجة أنا مديهن هنا نبين مدحوينها أمد الصوماليات محمد عبد الله فرماجة أيام وعني anigana hadalkan ku soo waxaad dhahdaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya macnaha waxaan leedahay farmaajo isticmaala madaxweynihii hore ee Soomaaliya radio Muqdisho iyo maxay ahayd iyo TV-ga qaranka ayaa maanta waxay ku qasbanaadeen inay ereygaas adeegsadaan waxaan ku weydiiyay markii qamiiska xirtay oo guriga lagu weeraray ka damba miyad farmaajo aad noqday madaxweynihii hore أول ربع حويني سواهي. أنا واسكو دعينا هذا الله لا هذا اسمه رئيسي هذا. أنا رئيس الوزراء. أنا قهرت السياسة كمجرني حالة مركز كعسنا نحن كقلنا. صح. هذه أن كوريسن سبب أن أقوله إن بالناشك مدحويني هوري. sababta oo dhahan waxay tahay anigoo tusbixay garaa iska wato khamiiska aad sheegaysan oo xamto adan maqlay wada xamanaysa ninka ku agtaagan oo ma aragtay xamta badan sidoo hadda sheegay aniga khamiiskayga oo iska wato oo iska tasbiixaysanaya ayaa askar aniga aan ogeyn gurigayga lagu soo daadiyay marka taas awgeed aniga aad baan u xanaaqay madaxweynihii hore Soomaaliya ana qaladkaas iga galay haye maxasan sheekh maxamuud ka hadlay mis farmaajo war maxasan sheekh maxamuud ka hadlay mis farmaajo kana waalina hadan sheekh maxamuud waa madaxweynihii hore Soomaaliya sidoo kale farmaajo laynkaas oo raacaya niyo horta midaan ku sheega waxaan la hadli doonaa horta niyo adiga neef faatay kowd waxaad neef ku tahay رئيس الوزراء عاي رئيس الوزراء horta waxaad neef ku tahay maqal أنا عاوز سلاتليل كنت كنا هرت فلقادة باش كبس war salaatuleelka inay dukunayso ninka ku soo weerarad u dukun lahayd wax ugu qaadi lahayd
horta niyow inaad neef tahay horta ninkan farmaajo horta ma kala xaqiiqsanin qofka doorashada u qaban karo oo u qalmo in aad tahay ina kalama xaqiijinin qadiyad xun oo qaab darnaa gashay ninka baddana waa lagu haystay ana arrintaad waxaan ka haystaa walaalow in adeerow in aad adigooba qamiiskaada alaabtaada iska qaba dhib ma lihin cabsi unbaa un kuu xirtay inaad gurigaada si nabad iskaga noqotood madaxweynihii hore mar dambe afkaada kasoo bixinood si nabadgelya wax ku dhamaysataan arrintaas ad u aragtaa aniga taas yeeli maayo hadda saaka aniga galabka dib ayaan ugu laabtay xafiiskayga si dastuuri ayaan fadhiyaan ku joogaa soomaalidana way igu taageersan tahay ninkan horeyba banaanku dibadaha ayuu ka imaaday dib aynu unoqon doona hadduu ilaahay khayran adaad kaa faa'iidaystee maanta waxaan u jeeday anigoo og inay geedaha angegeen anigoo og inay soomaali saan ka dhacaysa anigoo og in madaxtooyada la weeraray anigoo og xasan sheekh maxamuud in saaka la toogtay asagoo ku hayo buuqa aan maqlayne waa ku sidee igama faa'iidaysanayne wiilka walaalkii kheyre hore ayuu u baxay walaal haddaa soo marqaanteen haddii kala khaylo ma rabay ma mirqaansanine walaal ra-iisul wasaare his excellency annaga ma marqaansanin marqaan ha nagu tilmaamin adinka waxaa idin weydiinay waxa villada ku jiro adinka bis aa arkaysa inay dadka kale arkayna maxay yihiin maxay tahay waxaas waxaan soomaalida dhan looma bandhigo annagaa fahamsan waxyaabaha hadda sidaan ognahayba adaan nahay annaga madaxda soomaaliya annaga shacabka dhan nagama gelin dad qaar u shaqeeyaan in adeero waxaad rabtaa horta mid yaraa jirto khayre intii aad xilka hayay horta aad intaad xilka qabatay wadooyin fara badan oo xirnaay oo muqdisho xirnaay oo furtay waa jiraan hortaad waa ku mahadsan tahay صح وشقدي حدنا وفي ويدونا إلا حدنا رئيس الوزراء الصومالي أنا laakiin madaxweyne Soomaali soo maray oo 2 bilood mishaarkeedii ugu deeqay bulshada Soomaaliyeed farmaajo ka hor horta lama hayo aniga caawi waa la shaqeeyaa war waxaad wacdo shaliba daraad ba Turkiga iska aado arliga ma jirto ka dhacaysa ninkaas waa ninkii Ismaaciil Umar Geelle diyaaradii asaga loo soo diray farmaajo loo soo diray oo in ay macnaha muqdisho ka kacdo Djibouti 40 daqiiqo ay macnaha ku nasato ka sii kacdo la rabay macnaha maaragtay maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaad ka doorbiday inaas diyaarad ay shacab saaran yihiin oo ka dagaysa arday sababa caasimadda Itoobiya ka dagaysa ka doorbiday tii Djibouti marleed ilaa madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle neef ah waxay saaxiibo PR ayaa la yiraahdaa dadka ayaa la iska gadgadayaa waa siyaasi waxa horta fiiri niyahow Ismaaciil Umar Geellena neefnimada ha u diidin adigana eedaha lagugu tirsanaya ha diidin horta nin u qalmo uma ekid horta doorasho nin qaban karo oo u qalmo uma ekid shalay bilaasha u shan lagugu dhiibay warniyo Axmedowi iyo ninka la yiraahdo ninkan Puntland walaalkii ah hadii doorashada ka maqin Soomaaliya doorasho kama dhacayso hal habeen kama dhacayso maalin kama dhacayso niyaw mid jirtaa waxay tahay mar walba waxaad rabtaa ninkan villada inaad ka soo saartaan adinku waxa idin ka maqan inuu celiyay baasaboorkii wadanka Mareykanka waa wadanka awood badan adduunka iyo baasaboorka ugu awood badan adduunka uu celiyay villada hadaad ka saartaan nin xageed aad diribtaan midaada kale waxaan maqlaayay canug yarood wadada soo istaajiseen oo aad dhahdeen guri hadaadan kiri iska bixin karin guri ijaaran ka bixinina kaale villada ka soo bax war ilmaha yar haddan baajinina ilmaha yar oo aan biirta ciyaarayaan la dambajirin ها مدن رئيس الوزراء مركو waxaanu ku sheegaynaa ninka meel u baxay ilaahay unta malahan صح marka adiga waxa laga rabaa wadada saxan ina qaadid ninka asaga ku soo doortay aadaysi dadkan gadaal ka soo riixay warkood oo warkiisa aa qaadatid صح marka waxaanu ku leenahay ra'iisul wasaare anagu waa ku jecelnahay adigoon ku aqoonin waxaana ka baray madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalinka madaxweynaha afka aad ka wadaan dastuuri ahaan u hadlaysan walaalayaal madaxweynaha war dastuuri aan hadlayay madaxweynaha hore ma dhayn anaga dastuurka markii noogu dambeysay waxa weeyaan asoo madaxweynaha magaalada dambe ka bedesheen seed la rabtaan horta ra'iisul wasaare nin la aamini kara ma tiid xaafada sigaalay waxaan si hadda war ku haynaa inay siiga ka kacayso meesha geelka aad ku horursteen 8 bilood ka hor madaxweynihii hore bayaan aamini weynay madaxweynihii Farmaajo heshiiskaas asaga ayaa hadda ka kacay adinku waxaa idin weydiiyay markuu xoogaha madaxweynaha idin ku kacaba geel aruuris oo bulshada maxaad u gashaan يوسف الوزارة نيفو ما هذا ما حلا ما كان حل كامل
waxba ha noo qaadanin maxaad hadda marka maxaa raja ah maxaad markaan xal hood haysaa liskama hadle inteed u barnayna markaan intuu imaanaya kursiga ninkaas adaa ka kacay kursiga ninkaas asaa ku fadhiisii intuu imaanaya ma gobolkan gedo oo waxa way boorka kacaya aad yaabayso dadka oolaha haysta aad yaabayso hataa diyaaradii meesha laga hagaajinay maxay doolo wadada diyaaradii laga hagaajiyay nin walbaba aad garoonka dhexdiisa sigaar iska yacba darad hataa nin meeshiida sigaar markaad saan ugu cabay meesha ku tuuray diyaaradda soo degtay markaa caga dhiganaysi baad ka hoos kacay holac aad ka hoos kacay diyaaradda iyo motoorii dadka shacabka labada meesha ku mid waxaad rabtaa inaad labadan geedoo angegan aad farmaajo nooga soo gelisay xaguu ku laabanaa tiri walaalo horta baan ku warana fiiri niyo horta rooblo horta neef laskama dhiga xayawaan laskama dhiga kowda war naga dhigaysaniyo horta hadalka waxaad rabtaa hadda ninkii ragga ahaa oo madaxweynihii dhammaan oo qaranka inaad baled xaawadan aad nooga keentaad rabtaa oo maxaa la dhihi jiray dhulkan kulaylaha oo rafaadka hal wado oo laami saaran yahay aysan jirin oo hataa iska badda doolow daraa diyaaradda soo degtay garoonka daraa doolow laga bilaabo hataa jilibka ciidda kuu qabanayso markay diyaarad saan usoo degaysa sigaar meesha ka shidnaay ay taayirka inay marisay cirkaad ay qabataad rabtaa inaad labadan geedo angegan aad farmaajo nooga keento war naga tag